السلام عليكم واديني سلامي سلام كدب ما أنت وحن إيدين هيا ورقات ونرسل وركسوءة ورقات وفرحة وقلنا يقحوتي جدات يكاكما ما أنت وحن نهاية ورقات ومهمة ومعلومة عن سويني ومقالو ينكا يو سوق الإسلام مراي وقت بوفس وبلاون دون ينكحوتي يدبلو علين دون وحياواس يا بريها دمي آد لو مشكور سناي inkastoo walow xootiga oo caad walaac badan ay ka muujiyeen in la baxay in kale ay walwal ku haysay inkastoo coronavirus-na uu dhaqaalaha wax walba u saaxiray hadda waxaan idin hayaa warbixin ku socota IOM iyo hay'adaha samafalka dhammaan iyo deeq-bixiyaalka hadda waxaa la sheegayaa wadanka Canada iyo qaaradaha Yurub in ay qaadan doonaan bishii saddexaad in ay qaadan doonaan 2500 oo qoysas cusub ah qoysas ka soo ah dad isku dhex jiro qaar medical ah iyo qaar oo 1992 imaadeen ilaa 2000 inta u dhaxaysay wixii Ilaahay nasiibkooda u yeelo in loo soo dhigin doono baryahan dambe tirkoobahaas information badan ayaa iska qoray marka information-ha inta iska qoray nin walba telefoon number ayaa loo qoraayay fadlan telefoonadiina hadansanina telefoonada ayaa la isticmaali doonaa hadda duudku hormaray wax warqad la soo dhijinayo warqad waa la fujiyo meesha ma jirto telefoonkaada lambarkaada 10kaada lambar ayaa la soo wici doonaa marka la soo waco hadduu ka hadlaysan yahay ikhtiyaarkaada marka fadlan qof walba bulshada waxaan inta ugu sheegayaa in nin walba oo kuxooti ah nin walba nasiib ayuu u furan nin walba u furan qof walbaana u furan marka maadaama u furan dad walba u furan yihiin haddana waxaan iga codsanayaa telefoonadiina ay daarnaadaan mar walba standby dadka falaaga xataa wada artay ay xataa waxay dhaheen falaaga waa la badin doonaa insha Allah dadka falaaga oo maray oo sugayaan oo maxalli jira waxaa la marsiin doonaa caafimaad ayaa lagu celin doonaa dadka caafimaadkooda cusub yahay oo marna u ahaayeen ayagana waa loo dadejin doonaa insha Allah dad badan waa la fasaxayaa sidoo kale dadka IANIS iyo GVA mareen ayagana insha Allah telefoonada daarnaadaan GVA way soo laabatay IANIS way soo laabteen dhammaan way howlgali doonaan insha Allah laakiin culayska waxay dhaheen aan saari doono xawad deeq-bixiyaalka in aan qaadan doono dadka cusub aan la dadejin doono waxaana la jiray wax walbana hoos u xiray dhaqaale xumada waxaana sababay iyo socdaalka wax walba yareeyay coronavirus ama covid-19 hadda waad artay adduweynaha caalamka dhammaan in xadidadii oo lagu xakameyn jiray oo socdaalka badan la joojin jiray wixii dhan bandowgii la fasaxay sidaas darteed hadda waxaa laga faa'iideysanayaa sidoo kale qodobka ku dareen waxay kamid ahay oo su'aal iska weydiiyo waxay ahayd talaalka covid-19 dadka aan qabin fadlan talaalka iska qaado inkastoo qoladan deeq-bixiyaalka ay leeyihiin talaalka waa u muhiim maadaama ka hortag u yahay marka inkastoo qasabna aysan dhihin laakiin waa laga fiican yahay inaad iska qaadato shahaadadaada talaalka iska qaado talaalka waa talaal muhiim iska ah talaalka hala qaato hana la sugo insha Allah waa la dardarin gelin doonaa mar dhow insha Allah wuu bilaaban doonaa buufiska nin walba inta Ilaahay u calfay marka insha Allah waxaan rabaa inuu dar doonaa insha Allah dhalashooyinka ayaan ku dari doonaa dhalashooyinka baryahan dambe waxaa la siinaa ilmaha oo xaafadaha ku dhashay ilmaha oo ku dhashay isbitaalka MSF wixii dhalasho guduud haysta dhalashada gududan waxaa la siinayaa dhalashada weynid ay qaadanayaan waana saddex qayb ay loo kala qaaday 2018 2019 iyo 2020 saddexdaas qaybood oo saddex sano ninka dhashay ayaa dooranay sidoo kale haddii aad dad waxaa jira laga waayay listi dad badan ayaa jira listigii laga waayay haddana listigooda wixii laga waayay dhalaab ay ku laabteen haddana waxaa la soo helay ayaa la dhahay wixii la soo helay marka inaad ku jirtaa laga yaabaa dib u soo booqo shahaadadaada kala qaado dhalashada gabadhaada ama wiilkaada kala qaata then insha Allah waxaa la jiray mid kale meelaha bulshada markaad aadaysiin sanxiraha la xirto farxalkan hala badiyo xilli wili coronavirus ayaa lagu jiraa dadaalka sameeyno insha Allah wabillahi tawfiiq sidoo kale waan niyo mahad culinay taageerayaasha Jawaan Maxamed Daacad Channel insha Allah waan niyo mahad culinay sida dhiiran aad ku xirantii mar walbo insha Allah hadda sidoo kale qaxootiga channelka soo mar walbo waa inaad waxyaabaha qaxootiga ku seeyo subscribe noo saar like share gabayalka furo qaxootiga dhadhaab channel mar walba waxaa keli doontaa warbixinada buufiska wararka caalamiga iyo sidoo kale wararka ku seeyo arrimaha bulshooyinka gaar ahaan qaxootiga wabillahi tawfiiq